بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلم وناكسن أصحابتي قالي سكسو نقد وناكسن يا إنجلي دمانتين إن شاء الله waxaan rajeynayaa caafimaad meel walba joogtaan walaalaba qaaliga ah bariyahan waanu kala baadnay oo waan yara mashquulay marka alxamdulillaah hadda caafimaad iskugu soo noqonay xogaa waxaan yara galgalay safar iyo howlo kale marka insha Allah anaan iiga sheekeyn doono fiidiyooyo aan idin kasoo diyaariyay insha Allah idin tusin doono hadduu Ilaahay yiraahdo oo idin soo gudbin doono walaalada qaaliga maanta waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago fiidiyoogan hadduu Ilaahay yiraahdo maraq yar oo maxaa iraahdaa caruurta ku korinaayo ma sha Allah caruurta aan spinach ka cuneynin ama koostada aan cunin yani anfacaayo oo jirkoodana wax u taraayo nafaqana gelinayo insha Allah marka walaalada qaaliga ila daawada hadduu Ilaahay yiraahdo asxaabtayda qaaliga hadda aan tuso hadda waxyaabaha aan ka sameynayo insha Allah waxa ugu horeeyay hilib ari halkan waxa noogu jira basal insha Allah halkan waxa igu jirta kamsar iyo toon yar halkan waxaa noogu jirto spinachka ama koostada maxaa iraahdaa baakada ku jirto fridge-ka la geliyay kuuskuusan marka hadhow markaan furo ayaa arki doontaan halkan waxaa noogu jira baradho maxaa iraahdaa iyo carrot halkan waxaa noo yaala gasac tomato ah insha Allah marka hadda intan ayaan hadda ka bilaabeynaa insha Allah wixii xawaash ah iyo waxyaabihii kale aan ku daraayna insha Allah waa idin tusin doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo marka walaalada qaaliga isla socod wanaagsan ayaan idin leeyahay hadda waxaan guda galaynaa hawshii hadduu Ilaahay yiraahdo iyo karinteeda daawasho wacan basasha ayaan hadda saaranay marka insha Allah waxaan sugayaa inta iga soo yara gaduudanayso hadduu Ilaahay yiraahdo inay wax yar ana waxaan jeclahay basasha soo yara shaaxido iyadoo sideeda waa cadcad inaan ku daro raashin yani qudradda ma jecli marka hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan yara sugayaa inta ka soo shaaxidayso hadduu Ilaahay yiraahdo هذا waxaan ku ridanaynaa hilibkeeni حطيت مرق كده aan ku karsaday waxaan kaloo ku darsanayaa xawaash kaari waaye سجينا أنتي واحد ما وصل كراية أو يرش أحد ما يجيبك إن شاء الله maanta gasac yaanyada ayaan haystaa yaanyada caadiga ee nool ayaan ka jeclahay laakiin maanta tan ayaa ii taala insha Allah tan ayaan ku darsanayaa هذا القارق هذا رقم حيقول لي حواش دبدوب واتقانانا فيلايا حواش كيني دبدوبنا marka had xawaashka ayaan tumanaya insha Allah iyo kabsartii toonta baradhada iyo kaarotada ayaan hadda ku dari doonaa baradhada wax yar waan dambaysiin doonaa aad muddo ilaa 15 daqiiqo hilibka intuu ka karaayo insha Allah hadda waxaan ku darsanaynaa kaarotada marka baradhada waan ka dambaysiinayaa maxaa yeelay baradhada inay iga jajabto ma rabo waxaan rabaa inuu hilibka si fiican igu bislaado asxaabta qaaliga wiilal badan ayaa igu xiran oo mar walba soo weydiiyaan daqiiqadaha aan ku karinayo hilibka ama markaas wixii aan sameynayo wiilal badan oo jeclaystay ayaa jira oo maasajidooda ila soo wadaago ay dhaheen abaa inta daqiiqad ay ku karayso nala soo socodsi insha Allah markii wiilasha waxaan u sheegayaa walaaladay hadda hilibka hadda waxaan sugaynaa ilaa 20 daqiiqo ugu yaraan
ama 25 daqiiqo maxaa yeelay hilibka inuu si fiican u bislaado ayaa fiican marka intuu ka yara bislaanayo ayaan sugaynaa baradhada waxaa waaye iyo koostada biseel badan uma baahno baradhada haday huurto hore ayay ka bislaanaysaa koostadana karis badan uma baahnaba laatastiga ama marka ugu dambeyso ayaan maxaa iraadayo ku ridanaynaa insha Allah marka isla socod wanaagsan walaalada qaaliga ah hadana xawaashideeni toonteeni ayaan tumanaynaa haduu Ilaahay yiraahdo halkan waxa iigu jira bur aan sugayo xogaa yar raba isagana inaan lagu cuno maraqa sawaayad ayaan ka sameyn doonaa insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo marka isla socod wanaagsan sababta qaaliga hadda waxaan ku darayaa xawaashkii aan gooni u soo tumay xawaash dhudhuubkii aan gooni u soo tumay ayaan ku darayaa hadda weli hadda baradhadii kumaan darin una shaaxda ayaan rabaa insha Allah asxaabta qaaliga hadda ugu yaraan 15 daqiiqo ku dhawaad 20 daqiiqo noo saarnaa hilibkeena marka hadda waxaan sameynayaa waxaan ku darayaa biyo kulul insha Allah iyo baradhada iyo kamsartii isla socod wanaagsan marka hadda iyadana waxaan sugi doonaa baradhada intay nooga bislaanayso insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo ayaan sugeynaa isla socod wanaagsan ugu dambeyntina waxaan ku darsan doonaa maxaa iraahdaa koostadeena ama spinachkeena insha Allah daawasho wacan asxaabteena maraqayna hadda waa noo biseel marka hadda waxaan sameynayaa waxaan ku darayaa koostadii insha Allah ama spinachkii isla socod wanaagsan asxaabteeda qaaliga hadda waa kana waxaan ku darsanaynaa spinachkii insha Allah ama koostadii iyada wax badan inay karto uma baahno in yar inay ku hurto haday u badato 8 daqiiqo ama 5 daqiiqaba in ay ku hurto ay u baahan tahay sababtoo ah koostada uma baahno inay karto oo ay saarnaato wax badan marka insha Allah hadda waxaan ku darsan doonaa maxaa iraahdaa biyo diiran aan ku kordari doonaa in yar marka insha Allah waa arki doonaa karaal noqdo walaalada qaaliga ciyaalka buuqooda hada maqleysaan qaybta kore ay ka qeexeelinayaan ay saaran yihiin marka karaal noqda shanqarta fiidiyowga inta hore ee codka hadda waan dul saarayaa inta dambe laakiin inta horena shanqar ayaa ku jirta marka iyadana karaal noqdo walaalada qaaliga subscribe noo saara channelka insha Allah gambaleelkana furto si aad ula socotaan waxyaabaha kale ee aan soo gelin doono insha Allah hala kala faa'iideysto haduu Ilaahay yiraahdo marka walaalada qaaliga hadda waxaan ku darsaday biyo diiran ama kulul marka insha Allah in yar inay karto ayaan sugeynaa haduu Ilaahay yiraahdo kadibna waa noo diyaar hadda iyada ugu dambeysay koostada wax dambe hadda u dhiman malaha basal yar oo soo googoosanaya ayaan dusha kaga darsan doonaa haduu Ilaahay yiraahdo marka asxaabta qaaliga wax yar biyo ayaan hadana ku kordhiyay marka hadda wax yar kadib waan ka dajisan doonaa waa noo diyaar ayay noo noqon doontaa insha Allah maraqeeni sida arkaysaan maraqaan waa maraq nafaqo leh qaboobahana ilmaha aad u anfacay iyo dadka waaweyn dadka gymka sameeynaya laftirkooda haday hilibka rabin haday doonaan digaag way ku bedelan karaan ani mar digaag waan ku sameeyaa mar hilib waan ku sameeyaa marka waa maraq nafaqadiisa wata qabowga ka difaacaya ilmaha wax u taraayo maxaa iraahdaa dadka weyn sida sileeg dhalinyarada
wiilasha isboortiga ah wiilasha jiimka qaada roodhida ku cuni karaan wax walba oo yacni lagu cuni karo uuna diideynin hadday bariis tahay hadday roodhi tahay hadday canjeero tahay hadday sabaayad tahay marka anaga hadda bilowga sidaad aragteen sabaayad ayaan u samaysanay qado ayay noo ahayd marka insha allah walaalada qaaliga sidaad u jeedaan maraqeeni waa kaas sidaas quruxda badan ah hadda basashi ayaan ku darsaday kabacdina kamsar yar iyo toon aan dhigtay oo aan ka reebtay intii hore ayaan ku darsanayaa waayo waxaan rabaa cagaarkaas iyo caraftaas yar inuu maraqa sii carfo oo maraq yar oo dhadhan leh uu noqdo marka insha allah waxaad ku badsataan haddaad maraq karsanaysaan iyo haddii kaleba wax walboo la karinayo haddaad basasha iyo toonta u badisid iyo kamsarada maraqaas maraq macaan ayuu kusoo baxayaa waad arkaysaan xawaashi kale oo aan ku daray ma jirto oo aan ka ahayn maraq digaag iyo xawaashi kaari asxaabteena qaaliga ah waad aragtaan maraqeennii sidaas quruxda badan ayuu noogu soo baxay maasha allah tabaaraka allah walaalada qaaliga fiideoga laag badan noo saara insha allah si uu u gaaro walaalada kale waxaan idinkaga tegayaa hadduu ilaahay yiraahdo fiideoga xiga ayaa noo balana insha allah bidnillaahi kariim waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu